Do it for the love, we not do it for the likes. Make them know success don't come overnight. Assalamu alaikum. Koolaba alif bata ABCD 1 2 3 waanigi fortoon maalin cusub aragti cusub kusoo dhawo channelkayga hadaad ka hesho videogan like iyo taabo ra'yi darabtina dhibatid comment ku soo qor aragti saan camal hadaartid subscribe kili ku sii maanta videoga wuxuu ku saabsan yahay daalamo waxa ila tali hano bilaato qofkan koowaad waxaan u bixinaynaa kaafiya waxay tiri assalaamu calaykum abaayo waxaan jira 18 sano magacayga ii qaray wiil ina adeerkayga ah ayaa dibadda ka imaaday sanadkii hore wuxuu jiraa 29 sano laba naag ayuu qabay anigana waa jeclaaday si qarsoodi ah ayaan isku guursanay uur ayaan yeeshay waan iska soo tuuray reerkayga oo dhan waxay ii haystaan bikro virginity fish and chips virginity mar walba waxay dhahaan guurso haddaan guursado maxaan dhahaa ninka aan guursado maxaan dhahaa bikro ma ihiyo garoob ayaan ahay abaayo qaali ina adeerkayga hadda waan kala tagnay oo hadda xiriir nagama dhaxeeyo waxaan isku keen dambaysay sanadkii hore dhamaadkiisa abaayo hadda ma aqaano waxaan reerkayga u sheego bikrinimo iyo cunug la-aan ayaa i haysato iyo nolol la-aan markaan damco inaan nin shukaansado waan cabsadaa qof ma dhihi karo garoob ayaan ahay sababtoo ah waxaan ahay garoob aan aroos laga cunin maxaan sameeyaa abaayo nolosheedoo dhan ayaan ka quustay iyo nin oo dhan ina adeerkayga wuu i xumeeyey fadlan i caawi hadda maxaan u sheegi doonaa ninkayga mustaqbalka please iisoo jawaab adiga iyo asxaabtaada horta nin iyo waxaas oo dhan waana looga daran yahay waxa koowaad aad sameynaysid waxay tahay ilaahay baad dib ugu noqonaysaa sababta ilaahay dib ugu noqonaysid waxay tahay cafis u weydiisanaysid cunug baad iska soo dambi kugu waay taas midda kaleeta yaa ku bixiyay waxaa la yiri qodbasiro waa xaaraan ani sheeqad ma ihi laakiin waxaan maqlaan kuu sheegayaa marka sheegayaasha inaan soo weydiisid waaye iyo dad diiniyan aqoontaan leh waxaa la yiri qodbasiro waa dambi hadduuna aabaha ku bixinin qofku ma xirmatid aabaha haduu nool yahay dadkaaga kale aabaha haduu dhintana dadka kale inay ku bixiyaan waaye marka nikaaxaaga inuu jiri in kala alaaba waclanbo midda kale to ah bikra ma ihi abaayo ninka aad guurso doonto horta ninkii hel isfahma marka isfahantiin oo nolol rabtiin ina isku dirsatiin markaas waxaan ka hadli kartaa hadda qof assalaamu calaykum ku dhahay aan isbarano ma dhigi kartaa ani garoobaan ahay ani kana ahay laguma dirsanin marka qofka isla hadashiin oo maaragtay aaminaad meesha imaato oo su'aalo imaadaan uu ku yiraahdo abay guur ma hore u soo martay waa dhihi kartaa guuraan soo maray cideeda ma ogo marka walaal waa kaasa haduu ku rabo nin rag yahay oo ilaahay ka baqaayo ceebtaadii dambigaaga uu ku qaranaya ma sii faafinay ma sii dhehaysid cunugan iska soo bixi iyo kana yeelay iyo kana ka dhac ma dhehaysid laakiin waxa dhehaysa garoobaan ahay laakiin guurkeyga aniga iyo ninkaas iyo wixii marqaati ku ahaa bisa og marka garoobaan ahay ninka saasa ugu sheegaysa saasuu maaragtay haduu kugu rabo kugu xalaaleysanaya haduu kugu rabinna waa qof awalba ku qorneen oo calaf ku aheen marka adiga dadaalka waxa saartaa ala ka cabsiga ilaahay ina u noqotid oo cafis weydiisatid iyo ninba meeshan inta iska dhigtid adiga isku mashquulshid oo adiga meel iska soo saartid meel marka iska soo saartid oo maaragtay adiga isjeclaatid oo adiga israbootid cabsida kugu jirta hadda way ka baxaysaa garoobka nabiga u duceeyay garoob dhib ma laha dad badanaa garoob there's nothing maaragtay oo maanta laga carro ama laga ceebsado ma aha waxa ka cabsanaysid waxay tahay bigranimadii iyo guurka aad soo martay taasna waa kuu sheegay qofka aaminaad markay timaado waad u sheegi kartaa waxaa dhihi kartaa guuraan soo maray oo la ogeen oo qodbasiro ahaa marka guuraan soo maray haddaad tirahdid qofka aqliga leh wuu ogaanaya inaad bikre ahayn kadibna hadduu ku rabo wuu ku xalaaleysana marka taladeeda taas waaye ilaahay ka baq ilaahay ku noqo ilaahay cafis weydiiso talada intaas waaye abaayo ilaahay ha kula garab galo ilaahay ha ku fududeeyo cabsidaan kugu jirtana way ka baxaysaa marka ilaahay cafis weydiisatid oo ilaahay ka barisid inuu jid saxan ku tuso oo dhibka iyo culayska uu ka qaado ilaahay wuxuu ku sii doonaa nin ku qalmo xaaji ku qalmo oo wax kasta u sheegi kartid oo sidaas kugu qaato insha Allah qeyr qofka kala aadina
dilemmarkan already aan soo saaray 2017 October ali soo diray waxay saaran tahay Instagram-kayga sababta ugu soo celinayo waxay tahay qisasaan camal ali soo diray laakiin qofku wuxuu yiri ma rabo inaad meel ka sheegtid ani kaliya iwaani soo qofkaas waanadiisa waan siiyay laakiin waxaan rabaa tan inaan ku soo celiyo sababtoo waxaan rabaa ra'yigiina inaan ogaado oo comment-ka ay ugu soo qortiin qofkaan marka soo dirsaday 2017kii 2017kii October 12keedu soo dirsaday qoraalka wuxuu saaran yahay Instagram-kayga so gabadhan waxaan u bixinaynaa raaxo waxay tiri abaayo dilemar baan haystaa waxaan ogahay inaad khamiista ka hadashid dilemarka abaayo bilal ka hor waxaad ka hadashay topicadaas oo ahaa nin maxoogi karaa naagtiisa ani dhibaatada ay haysato waxay tahay ay sanad ama ku dhawaan 2 sano hadda wax la mid ninkeyga maya ma ogolo haddaan aniga caafimaad qabin oona rabin xataa wuu isku qasbaa haddaana dareen haynin oona rabin inaan wax sameeyo oo fiicneen xataa wuu isku qasbaa tan waxay dhacday marar badan hadda waxay noqotay caadiya ma fiiri karo wajigiisa waa ku yaqiiqsoodaa ma aqaano waxaan ninkan u guursaday aniga uur baan yeeshay abaay fartuun tan ma aaminaysid laakiin ninkan wuu isku qasbay anigoo leh 8 bilood oo uur waxaan ahaa uur culeys badan waan daalnaa waana bararsanaa waxaan ku iri ani ma sameey karo asagana wuu isku qasbay aniga waxaan dareemay qof sharafteeda meel looga dhacay qof la abuser gareeyay qof laga taxadareynin waxaan rabaa zaid inaan oga tago ninkan waxaan ka shalayaa inaan mar hore ka tagin hadda waxaan dareemayaa in aan daahay wuu ku wanaagsan yahay meelaha kaleete laakiin markay imaato xaajada maskaxdiisa oo dhan uu dhumiyaa markaste wuu isku qasbaa kadibna wuxuu yiraahdaa raali ahow markaste wuxuu yiraahdaa raali ahow haddana wixii waa dhacaan markii ugu dambeysay aniga waan naxay maadaama uur lahaa uu isku qasbay uurka aan lahaana uu yahay cunugiisa fadlan isaaciday ma aqaano wax aan sameeyo su-aasha meesha taalo marka waxay tahay aniga waa ka jawaabay dilemarkan waa soo tagareeyay oo gabadhii waa la hadlay sanadaa laga joogaayo hodho laakiin inta kuma soo celinayo sababtoo murkaa badanayo marka taladaa haysid aad dhihi lahayd waagaas haddaa aniga booskayga ku jiri lahayd maxay ahayd commentka kusoo qor diinteena tan maxay ka oranaysaa nin maxoogi karaa naagtiisa aqoon hana lagu soo saa'idiyo waxaad qoraysa ka fiirso diin ahaan la rabaa in aad u soo qortid xadiid ama wax soo raacisid ra'yigaaga sababta tan hadda ku soo celiyana waxay tahay abaayada kala soo dirsatay waxay tiri qof ay iga sheegin dhibaato saas amal ayadana haysato waan la taliyo waxaan ku eri familkaagi dadkaaga u sheeg laakiin diin ahaan wax waa keeni waay oo aan way la fahmaysiin amarna meesha warka u wado diin ahaan wixii aan sheegay waa difaaci waay waxay leedahay ninkii wuxuu leeyahay waa isku qasbi karaayo diinta ogolo hadaa dadkaaga u tagtid xataa waxay leeyihiin ninkaaga waa si ku diidi kartaa so aniga faa'iideysto oo Google waan galay waa ku dhex wareeray marka xadiid hadaa haysid oo shiiq tahay ama shiiq aad garanaysid su'aasha soo weydii kadibna comment-ka noogu soo qor inta ku soo gabagabeynaya qaraabada haligu salaamay ilaahay dadka dhibka ka qaado ilaahay dadka jiran ha daaweeyo ilaahay dadka dhibkaan amal dadka ku haayo onka iyo haraadka ka baabi'iyo ilaaha noo maqan inta ku soo gabagabeynaya qaraabada haligu salaamo adios. Do it for the love and not do it for the likes.